daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan oo meelad caalamka ka joogtaanba waa mar kale iyo Ubaxle Media 24 waa idaacadeennii habeennimo waa 15 July 2024 daawadayaal mawduuceena caawa waa mawduuc caadi idinka farxin doona kolley wararkana in badan ciddii la socotay ay maqashay waxaan rajaynayaa inaan faahfaahin fara badan idinka siiyo bal horta marka hore waxaan rabaa inaan idin dhageysiiyo in yar oo ka mid ah United Nationska oo ka hadlay qadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland u caqli celiyay Muqdisho iyo maamulkeeda balaan si aan idinku faahfaahiyo marka hore idin yar dhageysiiyo. At the regional level, I remain confident about the Ethiopia and Somaliland Memorandum of Understanding announced on January 1st, which has created optimism in the Horn of Africa at a time when region has opportunities. I recall the Security Council has repeatedly affirmed respect for the sovereignty, territorial integrity, and peaceful coexistence of both Somalia and Somaliland. I encourage Somaliland and Ethiopia to resolve this matter with Somalia peacefully, in accordance of the principles as enshrined in the United Nations Charter and international law. waxa uu ahaa sarkaal sare oo u hadlayay United Nationska waxa uu yidhi marka ugu horeysa waxaanu ixtiraameynaa sovereignty-ga ama jiritaanka ama xuduudaha Somaliland iyo Soomaaliya waxaanu sidoo kale soo dhaweynaynaa buu yidhi MOU-ga Ethiopia iyo Somaliland kala saxiixdeen waxaanu ku talinaynaa buu yidhi oo dhiiri gelinaynaa in laga midho dhaliyo oo ay dhammaystirmato wuxuu si gaar ah ula hadlay Ethiopia iyo Somaliland wuxuu yidhi waxaan idinkula talinayaa inaad si peaceful ah nabadgelyo ah arrinkiina ku dhammaystirataan Soomaaliyana aad hadal qabow kula hadashaan ama qancisaan macnaheedu dhan wuxuu ku soo ururayaa Somaliland waxa uu ku soo gunaanaday legally labada dawladood heshiiska ay wada galeen xaq bay u leeyihiin waa Somaliland iyo Ethiopia macnaha hadalkani waxa uu ku soo biyo shubanayaa Soomaaliya qanciya macnaheedu yani si peaceful ula hadla macnaheedu waxa weeye qayladii joojin waaye inay idinka daba quuqleeyaan hari waaye idinkoo hawshiina wata oo hawshiina caalamku taageersan yahay xaqna aa u leedihiin labadiina dawladood inaad ka heshiisaan wixii aad dantiina u aragtaan qoladan qaylinaysa si nabadgelyo leh u qanciya macnaha markuu arkay labada dawladood ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo Ethiopia inay si bareera ugu tala galeen in ay gacan bira saaraan cid allaaliye ciddii isku dayda heshiiskooda ay danahooda ka arkeen inay hor istaagto quwadaha Somaliland iyo Ethiopia iyo xukuumadda taagta daran ee halka kiiloomitir Muqdisho ku urursan iyada nabadgelyadeeda caalamku ilaaliyo oo Ethiopia lafteeda ay ka mid tahay kuwa nabadgelyadooda ilaaliya ciidamada maxaa la yiraahdaa Afrika ay ilaaliyaan adduunku uu nabadgelyadooda ku bixiyo dhaqaale loona soo dawariyo oo loo sadaqadeeyo markii taa la arkay haddana ay hadalkii iyo qayladii joojin waayeen waxa la yiri war masaakiinta yarar Somaliland iyo Ethiopia gacan bira bay saari doonaan sida ayaa horta warkani ku soo baxay oo la yiri u tura hawshiinana caalamkuna waa aqoonsan yahay xaqna waa u leedin waana sharci si nabadgelyo ah ku dhammaystirta heshiiskiina xuduudaha dhuleed ee sovereignty-ga Somaliland iyo Soomaaliyana caalamku wuu aqoonsan yahay waana ixtiraamaya idinkoo laba dawladooda oo laba dhul kala leh oo laba dal kala leh
haddaa isaf garanaysaan iyo haddaa kala tegaysaan iyo haddaa wada joogaysaanba waa arrin kale laakiin horta marka hore sovereignty-giinu waa mid la aqoonsan yahay baa macnuhu u dhacayay somalilandna sida soomaaliya waxaanu nahay dad markii hore wax isku darsaday iminkana kala danaystay sida soomaaliya ay danaha gaarka ah ay leedahay cid ula gasho ayay somalilandna cid ula geli kartaa heshiiska kala tegid iyo isu soo noqosho iyo wax ku heshiisinna waa mid gaara isagu laakiin sida ay soomaaliya danaheeda u maamulato ayay somalilandna danaheeda u maamulanaysaa caalamkuna uu ixtiraamayaa labada dhinacba haddaba somaliland dhinaceeda way ixtiraamtaa dowladaha deriska laakiin kuwa iyagu aan dal lahayn dowladnimona hayn iyaga gacanta lagu hayo keliya qorshoodu waxa weeye kuwana la daadega weeye waayo waxba iyaga gacan uguma jiraan nabadgelyo hadday noqoto wax allaale waxay ku faanaan ma jiro ciidan ay leeyihiin oo maanta ay ku faanaan oo ilaa ciidan baanu leenahay ma jiro waa ciidan beeleedka marka dabdamiska la isku qabto beelaha u kala baxaya nabadgelyo ay iyaga gacan ugu jirto ay qaran Soomaaliyeed ku ilaaliyaanna ma jirtee waa kuwa iyaga filla Soomaaliya lagu ilaaliyo ciidamada Afrikaanku ay ku ilaaliyaan marka iyaga wax gacan ugu jira oo ay magaranaysa amni iyo ku sugi karaan ama ay berbera iyo saylac iyo lughaye iyo maydh iyo laasqoray kaga sheekayn karaan ma jirto waa dream 1 kilometer aan dhaafsiisnayn caalamkiina wuxuu arkay diyaargarowga Somaliland iyo Ethiopia inay ku tala galeen inay gacan birays kaga qabtaan wixii ku soo eedarooda marka sidaa ayaa maanta ay qaramada midoobay ku soo saartay hadalkan iyada oo si codsi ah jamhuuriyadda Somaliland iyo dalweynaha Ethiopia kaga codsatay in aanay maxaa la yiraahdaa dagaal ama awood u isticmaalin xukuumadda taagta daran ee caalamku maanta uu rabo inuu soo yabyabo balse iyaga oo heshiiskooda iyo waxa dantooda ay u arkaan labadooda wada galeen wadanaya hawshoodana wata inay qoladaana yara qanciyaan baa leeyahay qancinta inagu waynu isku dayno waanu qancino waxaan ku walaalayaalo danihiina iyo dekadihiina iyo dawladdiina iyo sovereignty-giina iyo xuduudihiina waxa aad ka samaynaysaan ma soo faragelino waxa iyaga soo faragelina inta kaliya ku oranayna waa inta wax kale ku oran mayno baryana iskuma lihino dalkeenni iyo dadkeenni iyo qarankeenni iyo jiritaankeenni buu haysanaa waana u talinaynaa dadka ay soo adeegsadeen ay siraadeen fadqadalo iyo fawdaha ka dhex abuuraana gacan bireen ku qabanayna Somaliland waxa ka go'an gudaha Somaliland cid ku jirta ee la rabo in la adeegsado inay gacan bir ku qabato u turi mayso taas waa xaqiiq laakiin qolada halkeeda ku doonan mayso United Nations kuna warkaa uu bixiyay uu leeyahay Ethiopia iyo Somaliland oo nimanka u tura waa talo laakiin waxa loo turayaa markay afkooda xidhaan ee edeb darrada la fadhiistaan ayaa loo turayaa haddii alla ka dhigo haddaysan la fadhiisan waayaan turaale ma jiree waxay yihiin baa la tusayaa reer Somaliland waxa leenahay waa guulaysateen caalamkuna guushiina waa arkaa waxaan kale idinku bishaareynaya halkan Ingiriiska waxa ka dhalatay dawlad xisbiga Labour-ku uu hogaaminayo warcad bay ka soo saartay in ay dawladda jamhuuriyadda Somaliland wax kasta ay la qaban karto la qabato in xafiis dhammaystiran oo diblomaasi xukuumadda Labour-ka imika dhalatay ay caasimadda jamhuuriyadda Somaliland ka hirgelin doonto insha Allah inay ogoshahay aqoonsan tahayna heshiiska Somaliland iyo Ethiopia taana way ku bishaareynaya in badan oo kale waxaan idin sheegay in cadowgeennii uu godadkii doofaarka dib ugu noqday waxaan leeyahay Somaliland guul cadowgeedu mar walba isaga isjabinaya innagana waxa inoo ballana isku duubni wada jir horow socod iyo qarankeena inuu ilaashano daawadayaal waxaan kaloo barnaamijyada soo socda idinku hayaa isbahaysiyo siyaasadeed ayaa Somaliland ka socda
faaqidaadeenna dambe ee siyaasadeed waxay ku saabsan tahay isbahaysiga badbaado qaran oo ay isku bahaysanayaan waxaa og tihiin 10kii urur mid ka mid ah waxa uu isbahaysi la samaystay xisbiga waddani 9kii kale waxa aynu sugaynaa halka ay ka hilaacaan insha allah warar badan waa idinka haya ururka qura ee la midoobay waddani waa ururkii keliya ee hoggaankiisu uu 2 jeer aynu ka hayno inuu cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland la soo saftay mar Jabuuti la soo saftay horena huwanta la soo saftay halka waxaanu ka qeexan karnaa isbahaysigaasi macnaha uu ku fadhiyo intaas ay idinku filan isbahaysiyada kale ee badbaado qaran iyo cidda qaranka laga badbaadinayo iyo cidda dalka laga badbaadinayo iyo sida ay isu bahaysanayaan dib baan idinka soo sheegi doonaa insha allah haddii alla ka dhigo waa ubaxle media 24 waana idaacaddeenii caawa oo isniin ah 15 Julaay 2024 oo aan intaa warkaa wanaagsan ee ka soo baxay qaramada midoobay aan idinku bishaareynay intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo walaalayaal